bismillahi raxmaan raxiim kulanti wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo caalamka joogtaan barnaamijkii hore waa iga go-ay hadib baan ugu soo laabtay caawa waa qalanjo oo baaris idinka salaamaysa habeen wanaagsan ayaa idin leeyahay kusoo dhawaada facebook iyo waxyaabihii ugu dambeeyey caalamka gaar ahaan dalka mareykanka sidaa ogtihiin waxaa ka socday beryahanba doorashooyin adag ay galeen tartamayaasha xisbiyada sidaan ognahayna dadweynaha dalka mareykankana ay ka muuqata daal fara badan iyo doorashadaas sida ay u socotay isku soo wada duub waa lagu guuleystay goordhaweed ayay dhammaatay marka barnaamijkii qaybtii hore waa iga go-ay waa laysoo wacay waa iga go-ay marka raalli ahaada qayb yar ayaan kasoo sameeyey dib ayaan hadda ugu noqonayaa doorashadii waa lagu guuleystay waa lagu kala baxay haddaba si aan u ogaano bal xaaladda dalka mareykanka iyo doorashooyinka sida ay socdaan bal wax yar ayaan iska tusaynaa yaa qadka ku jira qof ay salaamaya waa mahadsantihiin koley maba aqri kara umaleyna kusoo dhawaada barnaamijkeenii caawa iyo facebooka iyo khadiijo qalanjo oo diyaar idinkuga ah magaalada baris dalka faransiiska idinkala soo hadleysa kusoo dhawaada barnaamijkaasi ayaan caawa rabnaa inaan ka hadalno waa khadiijo qalanjo oo markale idinka salaamaysa magaalada baris habeen wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kastoo caalamka joogtaan waa idin salaamayaa kusoo dhawaada barnaamijkii caalamka caawa ee aan ugu talagalay bal in aan wax kaga eego xaaladaha ka socda ee dalka mareykanka iyo doorashooyinkii sida ay dhowaan usoo gabagabeeyeen bal markana aan tagno dalweynaha mareykanka iyo doorashooyinka sida ay socdaan sidaad ogtihiin waxaa socday 2 musharax oo u tartamayay dalka mareykanka oo adag oo baryahanba ismari waayey hase yeeshee uu ku horeeyey musharaxaas Joe Biden oo ah madaxweynaha mustaqbalka la doortay oo qaban doona haddii la raali ka dhigo bisha January ee soo socota haddii raali ka dhigo waa kuma haddaba madaxweynahan iyo weliba sida doorashooyinka ay u dhaceen bal dib aan u raacno waxaa la tartamayay musharaxan Donald Trump oo tartan adag la galay sidii uu ugu guuleysan lahaa mar labaad inuu helo doorashada dalka mareykanka hase yeeshee ma dhacday arrintaasi waa isku day weyn ayuu ahaa oo jeclaa madaxweynaha dalka imika hogaaminaya xilka sii degaya in uu helo codad ugu sareeya dalka si uu mar labaad u helo doorashada ugu guuleysto marka waxyaabahaas oo dhan ayaa fiirin doonaa maxay tahay sababta cakirnaanta ku sameeyey doorashada inay sii socon weyso waxyaabahaas dhan waa inay isweydiinaa waxaan rabaa bal inaan dib idinkugu celiyey markana dalka mareykanka iyo xaaladihii ugu dambeeyey doorashooyinka maxaa kasoo baxay dalka mareykanka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey caalamka sidaad ogtihiin waxaa ku tartamayay 2 musharax oo waaweyn xisbiyada u waaweyn dalka mareykanka ee Democrats iyo weliba xisbiga jamhuuriga ama Republicanka labada Republicanka iyo xisbiga Democratska waxaa hogaaminaya Joe Biden oo ah nin aad khabiir ugu ah dhanka siyaasadda muddo dheer kusoo jiray horey 2 jeer isugu soo sharaxay madaxweynaha dalka mareykanka haddaad dib u eegno taariikhdiisa labadan waxaa ku tartamayay Joe Biden iyo weliba Donald Trump haddaba Donald Trump waa kuma Joe Biden waa kuma wax yar oo ka kooban ayaan idinka tusaynaa haddii ilaahay raali ka dhigo kusoo dhawaada waa qalanjo mar kale idin salaamaysa hore aan sii socono sidaad ogtihiin waxaa jiray doorashadan inay ahayd doorasho adag oo aad yacni waqti badan u qaadatay codadka tirinteeda hase yeeshee Joe Biden waxaa ka muuqatay kalsooni aad u ballaaran sababtoo ah waa kuma horta waa inaan isweydiinaa wuxuu ahaa aqoon-yahan 2 jaamacadood kasoo qalin jibiyey ayuu ahaa 2 jaamacadood ayuu wax kusoo bartay waa professor ku takhasusay dhinaca sharciyada waa professor ku takhasusay xagga sharciga 2 jaamacadood ayuu kusoo bartay jaamacadda Delaware iyo weliba jaamacadda Syracuse ee dalka mareykanka ku taala wuxuuna kusoo takhasusay waana professor wax ka dhiga professornimada kusoo takhasusay dhinaca sharciga
waa qabiir dhinaca siyaasadda muddo kusoo jiray siyaasadda 2 jeer madaxweyne isku soo sharaxay wixii ka dambeeyeyna inuu ahaa madaxweynaha Barack Obama madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ayuu wuxuu ahaa vice president amba ku-xigeen madaxweyne ku-xigeen la taliya ayuu soo noqday sidoo kale sidaa ogtihiin markay doorashadu dhacayaan dalka Mareykanka shacabka waxay ku doortaan xisbiyada waxqabadkooda iyo sida ay marba usoo bandhigaan marka maxay tahay sababta doorashada dib u dhigtay sababta sida hadda dib u raacno sababta doorashada dib u dhigtay waa tii Donald Trump uu ku dhawaaqay in uusan ku qanacsanin markuu arkay in uu kusii guuleysanayo musharaxa madaxweynaha iminka la doortay ee cusub Joe Biden markuu arkay awoodda uu xisbigiisa ku leeyahay dimuqraatiska uu 260 kusii siqay ayaa Donald Trump waxa uu go'aan ku gaaray in uu dhinac ku dhufto uu yiraahdo arintani kuma qanacsani ha loo saaro guddi iyo maxkamad iyo waxyaabo noocaas ah hase yeeshee inkastoo ay doorashooyinka mararka qaar arrimahan oo kale ka dhacaan tan ugu dambeysay ayaa waxay ahayd midan uu madaxweynaha iminka xilka sii dhamaanayo Trump uu ku andacooda in ay doorashadaasi xaq ahayn loona baahan yahay in dib loo tiriyo gobolada qaarkood oo ugu waaweyn dalka Faransiiska inta la socotay marka sababta maxay tahay oran karnaa in arintaasi ay dhacdo amba uu ku dhaganaado uu yiraahdo waa lagu shubtay hase yeeshee arintaasi been ayay noqotay sababtoo ah amaaraad iyo sal toona lahayn sababtoo ah in madaxweynaha cusub iminka la doortay Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in xataa loo adii la tirinayo doorashada uu waxba ka qabin laakiinse ay tahay mid xaq ah uuna ku kalsoonaay in ay arintaasi uu asaga ku guuleysan doono wayna ka go'need waayo wuxuu ahaa nin kalsooni weyn isku qabo siyaasadana aad u yaqaano maadaama uu khibrad u leeyahay ninkan Joe Biden waxa uu ku dhashay dalka Mareykanka sanadkii 1942 ayaan jecelahay waa 77 jir bishan dhamaadkeeda noqon doona 78 jir waa madaxweynaha ugu weyn ee soo mara dalka Mareykanka marka loo eego doorashada ugu horeysa ku guuleysto haddaba maxay tahay waxyaabihii la isku hayay baryahan maxay tahay waxyaabihii la isku hayay baryahan doorashada maxaa keenay in dib u dhac ku dhaco waxyaabahaas oo dhan ayaa ka hadlaynaa dadka meelo kale ayay wax ka fiirshaan laakiinse bal aan dib aan u raacno bal maxay tahay sababta doorashada dib ugu dhacday waxyaabahaas oo dhan waxyaabo mudan inaan isweydiino sidaa ogtihiin Donald Trump wuxuu heshiisyo la galay shirkado badan iyo shirkado waaweyn taariikhdiisa maadaama aan ka sheekeynay Joe Biden waa inaan in yar ka taabtaa iyadana taariikhda kooban mid kasta ayaan ka taabanaya waa ku qasbanahay maadaama Joe Biden aan ka hadlay madaxweynaha xilka sii dhamaanayna Trump waa inaan ka hadlo Trump waa xirfadiisa shaqo haddii aan dib u raacno waa dhaqaalayahan amba waa nin business ah kasoo bartay jaamacad ku taala dalka Mareykanka waa nin businesska ku dhex jiray hase yeeshee aan siyaasadda shaqo ku lahayn taasna waxay keentay in uu ku guuldareysto in uu helo madaxweynenimada dalka Mareykanka haddaba anagoo bal tartiib gadaal ugu noqonayna maxay tahay sababta Donald Trump ugu dhaganaa codbixinta in uu yiraahdo in dib ha loogu celiyo iyo in uu sheegto in uu ku guuleystay maxaa waxyaabahaas dhan keeni kara sida ogtihiin madaxweynayaasha markay xilka qabtaan waxaa jira waxay go'aamo la gaaraan ama heshiisyo la galaan caalamka si ay heshiisyadaasi u guuleystaan u sii socdo iyo kontaraadyo la kala galay ama la kala saxiixday wadamada adduunka caalamka ha ugu badnaado wadamada shirkadaha OPEC shirkadaha soo saara shidaalka kuwa dhaqaalaha adduunka maalgashayaasha adduunka intoodaba waxay xiriir la leeyihiin markasta madaxweynaha wadankaasi koro waxay walwal ka muujiyeen maalgashayaasha adduunka ninka kusoo bixi doono waxay aad u taageersanayeen
Jupiter sababtoo ah Jupiter markii hore wuxuu ballan qaaday inuu ku biiri doono shirka amba gruubka cimilada shirkii Paris ka dhacay 1900 laba aan dhahe shirkii Paris ka dhacay 2015 isna lagu saxiixay dalka Mareykanka lagu saxiixay 2016 Washington lagu saxiixay shirkaasi wuxuu ahaa shir loogu gogol xaarayay in cimilada adduunka laga hortago in ay kululaato waxyaabaha oo John Biden uu ballan qaaday ayaa waxaa ka mid ahayd in uu haddii uu guuleysto xilka madaxtinimada in uu ku biiri doono shirkaasi ama isbahaysiga heshiiskii Paris 2015 in uu ku biiri doono heshiiskaas oo lagu saxiixday raali ahaada heshiiskaasi waxaa lagu saxiixay New York ayaa lagu saxiixay 2016 laakiin heshiiska wuxuu dhacay Paris 2015 waxaa lagu magacaabaa heshiiskii guusha taariikhda galay dalka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris waxaa la yiraahdaa heshiiskii Paris cimilada sababtoo ah waxaa jirtay hadda ka hor 195 wadan in ay ku shireen aba ay ku heshiiyeen in ay cimilada kontroolaan waa lagu guul dareystay heshiiskaas oo horey marar badan loogu guul dareystay markii ugu horeysay lagu guuleystay ay ahayd magaalada Paris lagu saxiixay dalka New York haddaba su'aal aan isweydiinaynaa waxay tahay xiriir ma la leedahay arrintaasi xiriir ma la leedahay doorashada haa sababtoo ah marar badan ayaa uu ka muujiyay walaac weyn madaxweynaha hadda xilka kasii dhamaanayo Donald Trump heshiiskaasi hase yeeshee Jupiter ayaa wuxuu si cad u sheegay waqtigii doorashada uu ku jiray in uu ka biiri doono heshiiskaasi Paris uuna ku bixin doono lacag si loo dhimo cimilada kuleelka 2 degree in ay ka sare marto lacag gaaraysa 2 bilyan I think saasaan jecelahay lacag gaaraysa ilaa iyo ugu deeqi doono ama uga qayb qaadan doono marka heshiiskaasi taariikhi ayuu ahaa taas waa meesheeda maxaa kaloo jira dhanka kale John Biden dadka caalamka u indheeya amba adaha maalgashiga iyo kuwa shidaalka iyo tamarta sidoo kale meesha kama marna kuwa tamarta ayaa waxay ka muujiyeen walaac weyn doorashada Joe Biden in uu soo bixi doono iyo in kale hase yeeshee waa ay taageersanayeen laakiin walwal ayaa jiray in uu dib yani in la dooran doono in kale hadda walwalkaasi meesha wuu ka baxay sababtoo ah waa la doortay heshiisyadaas oo dhan iyo kuwa shidaalka wadamada bariga dhexe sidoo kale isfaham waaga iyo waxyaabaha ku dhex jira sida wadanka Ruushka iyo dalka heshiisyada ay kala galaan wadamada khaliijka ee ku saabsan dhinaca shidaalka isagana halkiisa ayuu ku jira waxyaabahaas oo dhan waxyaabo la isweydiin kara ayay tahay oo ah yaa ku guuleysan kara heshiisyadaas yaa sii wadi kara maalgashiyaasha adduunka yaa yacni u wanaagsan midkee u wanaagsan sidaa ogtihiin hadduu mid madaxweyne meesha ka baxo waxay leedahay in heshiisyadii dib loo cusbooneysiiyo madaxweynahaasna waa inuu caddeeyaa inuu shirkaas ambaba qorshayaashaasi jira maalgashiga adduunka iyo kuwa shidaalka iyo kuwa lacagaha adduunka bixiyo dhan in heshiiskaasi ay meel mariyaan taas waxay keentay sida la saadaaliyay in madaxweynaha xilkasii dhamaanayo uu aad ugu dhago in uu xilka mar labaad dib u soo noqdo sababtoo ah maadaama uu yahay nin dhinaca dhaqaalaha yacni amba uu yahay nin businessman ah yacni in uu helo bal in uu sii wado wadanka heshiisyadii Mareykanka ay la galeen wadamada khaliijka ama shidaalka soo saara iyo weliba shirkadaha shidaalka soo saara iyo maalgashiyaasha adduunka iyo weliba siyaasadda caalamka ee xagga ammaanka meesha kama marna marka waxyaabahaas oo dhan iyadoo la isweydiinayo waxaa jira in dhinacyo badan laga eegay marka si aad ayaa adduunka
adduunka ugu soo dhuuntuloolay amba caalamku eegayeen doorashooyinkaas sida ay u socdeen. hadda doorashooyinkaas way soo gabagaboobeen in 270 ayaa waxaa isla markiiba 273 ku hogaaminayay muddo dhowr cisho ay doorashadaasi ay xakaneed. sidaan ognahay doorashada waxaa la joojiyey dhowr maalmood oo ay socotay, laakiin tirinteedii ay xakameysaneed Donald Trump oo ku baaqay in la joojiyo daraadeeda. hase yeeshee xaqiiqooyinkii baaritaankii wixii oo dhan waxaa la ballan qaaday in doorashada lasii wado. waxaa ku guuleystay madaxweynahaas Joe Biden. waa madaxweynaha mustaqbalka soo socda ee loo dhaarin doono bisha Janaayo ee soo socota. awoodda ugu weyn aqlabiyadda baarlamaankana isaga ayaa iska leh. marka haddii aan intaas kaga gudbo bal waxyaabihii aan dul maraayay oo ah maxaa keenay isqabqabsiga weyn iyo in uu Mr. Trump uu ku dheganaado doorashada in ay tahay mid aan xaq ahayn. hase yeeshee hadda sida ay u muuqato waa uu ku qancay, sababtoo hadda waxay kusii socotaa ilaa 279 cod. 213 ilaa 14 codod ah ayuu helay madaxweynaha madaxweynaha Trump. marka Trump maxaa la gudboon? waa in heshiisyadii uu la galay wadamada caalamka, waxaa jira heshiisyo aan laga gudbi karin lama dhaafaan ah, sida heshiisyada wadanka Mareykanka uu la galo wadamada ammaanka, siyaasadda. waa heshiisyo u gaar ah dalka Mareykanka oo madaxweyne kastoo qabto, yacni dhanka nabadda amba wada hadalada heshiiska, hadday dagaal tahay iyo hadday nabad tahay in lagala tashto madaxweynahaas in uu tixgeliyo ama hirgeliyo madaxweynayaashii ka horeeyay. siyaasadda Mareykanka inay muhiim u tahay dadweynaha shacabka Mareykanka. taas ayaa iyadoo laga eegayo ninkan siyaasadda nin kusoo jira waa maaha nin cusub ma ahan. waa nin khabiir ah oo siyaasadda yaqaano, sharcigana yaqaano, maadaama oo doorashooyinkii qalqal laga geliyena uu sheegay in doorashadaasi uu diyaar u yahay wax kasta oo yani doorashadaasi ay ku hirgelaysa in la sameeyo. marka doorashadii halkaas hadda markii ugu dambeeyey natiijada 239 ayuu haystay. tirintii way socotay, laakiin waxaa lagu xisaabtamaa yaa ku hormari doona 270. that's why madaxweynaha xilka imika haya ee kasii dhammaanaysa Donald Trump uu ugu dheganaa in doorashadaasi ay xaq ahayn, maadaama 260 uu kusii siqaayay madaxweynaha imika la doortay Joe Biden. marka Joe Biden waa ninka caynkaas ah ee siyaasadda. anoo barnaamij kasoo diyaarin doono barnaamij ku saabsan taariikhda Joe Biden ayaan kasoo diyaarin doonaa ee ku saabsan madaxweynaha cusub ee la doortay ee dalka Mareykanka. marka madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka la doortay shacabku sidee u arkaan? ma soo dhaweynayaan? dabcan way soo dhaweynayaan, sababtoo ama madaxweyne aan la soo dhaweynin lama doorteen. waa la doortay. kale guddi waxaa jiray doorashooyinka korka kala socday iyo tirinteeda. marka qorshaha halkaas ayuu marayaa. marka maxaa kaloo la gudboon madaxweynaha cusub? waxaa la gudboon in uu dib u soo nooleeyo heshiisyadii caalamka ee socday, kuwii Trump ka horeeyey, sida Barack Obama, maadaama ay isku siyaasad yihiin. Barack Obama ayaa la hadlay goor dhaweyd, sida la sheegay la faafiyey ama lagu qoray Twitterka, in uu ku taageersan yahay madaxweynaha cusub siyaasadiisa, maadaama uu horey ula soo shaqeeyay muddo 8 sano ah. ninkana uu yahay nin khabiir ah, siyaasadda wax ka yaqaana dhanka sharciyada yaqaana. waxaa la dhihi karaa waxay isku yara dhow yihiin Barack Obama. ninkan wuxuu u doortay in vice president u noqoto gabar kasoo jeeda 2 wadan,
dadka madow oo maraykanka ah iyo weliba dadka loo yaqaano Indochina ama qaaradda Aasiya ay kasoo jeedaa labada wadan madowga ah iyo qaaradda Aasiya ayay kasoo jeedaa gabadhan. waxaa la yiraahdaa Kamala Harris. Kamala Harris ilaa labada kun iyo Kamala Harris 2017 ilaa hadda waxay ahayd baarlamaanka waa ay ku jirtay. waa gabar active ah sida la sheegay. ayadana sidoo kale aqoon-yahan ah lasoo shaqeysay madaxda qaar lasoo shaqeysay baarlamaankana kusoo jirtay. marka maxay kusoo kordhi karaan ayaa isleedahay maadaama uu lasoo shaqeeyey Barack Obama isagana hadda uu doortay gabar ayadana la doonayo in dhowrka sano ee soo socota ama 4 sano soo socota in hawsha ay sii wadaan. haddaba intaasi waxay ahayd waxyaaba aan ku eegayay faalooyinka gaarka ah aniga aan ku fiirinayay baryahanba indhaha ayaan ku hayay xaaladda doorashooyinka dalka Mareykanka ka socday. marka intaas ayaan jeclahay goordhow inaan barnaamijkaas qaybtiisii hore aan kusoo gabagabeeyo. barnaamijyo kale oo kan lamid ahna aan idiin soo diyaari doono haddii Ilaahay raali ka dhigo. marka waa kuma Joe Biden waa aqoon-yahan, waa siyaasi, waa sharciyaqaan. saa ogtihiiba qofka saddexdaas xirfadood leh markastaba wuxuu u dhow yahay in uu guuleysto. waxaa leeyahay waa ninka ugu da-da weyn ee soo mara dalka Mareykanka xilka qabashada ugu horeysa dalka Mareykanka. madaxweyneyaal kale ayaa soo maray. marka sidoo kale waxaa taageersan caalamka markii madaxweyne la doorto sidaa ogtihiin waxaa jira diblomaasiyiinta adduunka oo dhan in ay indhaha ku hayaan ninkan isagoo la dooranin. Joe Biden ayaa waxaa usoo diray hambalyooyinka caalamka uga imaanaya. waxay leeyihiin waan kula shaqeyneynaa, waan ku taageersanahay. telefoona ayaa loo soo diri jiray. dhanka kale Trump bal dhankiisa aan fiiriyo. Trump sida siyaasadiisa dadka aadka ugu indheeya waxaa la leeyahay wadamo badan oo waxaa jira Trump kasoo horjeeda caalamka qaarkood qaarna ay taageersanaayeen. marka Trump oo looga bartay hadalla adag iyo weliba in uu aad afka ugu weeraro wadamada qaar xayiraado uu kusoo rogay. waxyaabahaas oo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha Donald Trump yacni ugu jira baalka siyaasadeed uu ku leeyahay dalka Mareykanka. baalka siyaasadeed ee ku leeyahay dadyo fara badan ayaa soo dhaweeyay in madaxweynahan cusub wadanka uu xilka qabto. sababtoo ah marar badan ayaa waxaa la sheegayaa in uu ku guuldareystay madaxweynihii hore wadamada caalamka qaarkood sida xayiraadaha wadamada islaamka. sidoo kale haddaan fiirsho indhaha ayay ku hayeen doorashadan. wadamo badan waxaa jira xayiraado lagu soo rogay in aan baasaboorkooda uusan aqoonsaneyn inay soo galaan dalka Mareykanka, taasoo aan horey uga dhicin. way jiraan dembiyo wadamada qaar burbur ku dhacay sida Suuriya iyo Egypt, Soomaaliya. wadamo badan oo horey u wanaagsanaa waxaa jira dhibaatooyin soo saarmeen oo dagaalada saameynta ay ku yeesheen burburka. taas isagoo uga faa'iideysanayo Trump waxa uu joojiyey wadamadaas qaarkood in ay soo galaan dalka Mareykanka ama fiisaha la siiyo fiisaha Mareykanka. haddaba siyaasadda hadba dhinac ay ujeedaa waa la arki doonaa wixii kasoo baxaa. inkastoo wadamada islaamka qaarkood ay taageersanayeen Trump iskuma raacsaneen mabda'a uu isaga aaminsanaa. wadamada qaarna way kasoo horjeedeen. qaarka aadka u taageersana waa qaarka maadaama uu yahay nin dhaqaalayahan ah dhanka
heshiisyo badan ay socdeen oo ku xiran wadamada khaliijka. heshiisyadaasna loo baahnaa in la dhammaystiro. waa qalanjo baariis idinka salaamaysa. habeen wanaagsan ayaa idin leeyahay. madaxweynaha cusub ee la doortay Joe Biden howl adag ayaa u taalo. goordhow dhankeena habeen waaye. galabnimada ayuu hadlayaa waqtiga dalka Mareykanka. khudbad ayuu u jeedin doonaa oo taariikhdi ah ee dalka Mareykanka. khudbadaas uu u jeedin doono. marka waan arkaynaa halka ay ku dambeyso. doorashooyinkaas way dhammaadeen. weli inkastoo codadkii ay iska soo dababaxayaan, codad fara badan uu helayo, hase yeeshee Trump uu halkiisii codadka ay sii yaraanayaan aad moodaa. marka barnaamijyo kale ayaan idinkaga sameyn doonaa oo taxano ah oo ku saabsan barnaamijka noocaan ah. tan iyo kulantadeena dambe haddii jiraan wax kaloo aan ka tegay insha allah gadaal ayaan kasoo gudbin doonaa barnaamijyada soo socda. sidaad ogtihiin sanduuqa dhaqaalaha ee Yurub ama sanduuqa dhaqaalaha adduunka ayaa sidoo kale walwalka muujiyey in ay usoo bixi doono in kale, maadaama ay taageersanayeen. haddana waxay rabeen maalgashiga iyo dhaqaalaha qofka hadduusan qofka kusoo bixin ma dhihi karaan waa taageersanahay isagoo aan doorashadii helin. inkastoo ay taageersanayeen haddana walwal weyn ayay ka qabeen. marka intaas ayaan uga bixaynaa qaybtii hore ee indhayntii siyaasadda aan ku haynay doorashooyinka ka socda iyo isbedelada ka dhacaya dalka Mareykanka. muxuu kaga tegi doonaa dalka Mareykanka madaxweynihii hore ee xilka kasii dhammaanaya. muxuu wadanka adduunka kaga tegi doonaa waa su-aal la israbo in la isweydiiyo. waxaan jeclahay bal inaan dib u eego madaxweynayaashii dalka soo maray. John F Kennedy, Bill Clinton iyo madaxweynayaal kale waxaa soo maray dalkan. marka barnaamijka inuu iga sii go-ayaa moodaa. waxaan jeclahay intaas inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka qaybihiisa dambe ayaan kusoo qaqaadan doonaa. Trump waxyaabihii uu kaga tegay adduunka iyo weliba wixii uu kusoo kordhiyey uu kaga tegi doono siyaasadaan iraade siyaasadda uu kaga tegi doono. waxyaabahaas oo dhan ayaan kusoo qaadan doonaa. marka tan iyo kulankeeni dambe anoo jecel bal inaan barnaamijyo noocaan ah idinsoo gudbiyo caawa. barnaamijkeena intaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa. barnaamijka waxaan jeclahay inaan qeybo kale ka dhigo haddii ilaahay raali ka dhigo. mar kale ayaan idin salaamayaa. mar kale ayaan baariis idinka salaamayaa. waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan. intii uu Mr Trump ka talinayay aqalka dalka Mareykanka siyaasadiisii maxaa isbedelay, maxaa kusoo kordhay, muxuu kaga tegi doonaa siyaasadda, muxuu ku reebi doonaa wanaag ah, muxuu waxyaabihii haddii uu jiro wax xumaan uu sameeyey uu yacni ma u sheegi doonaa dalka Mareykanka. waxyaabahaas oo dhan waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijyo dambe oo soo socda. tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa barnaamijkii caawa aan soo wadnay. intaas ayaan caawa kaga baxayaa. tan iyo kulantideena dambe barnaamijkan la mid ah inaan barnaamij kusoo noqdo ayaan jeclahay mar labaad insha allahu tacaala. sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. waa qalanjo eegeysay barnaamijka saadaasha siyaasadda adduunka gaar ahaan dalka Mareykanka idinkaga sheekeysanaysay. tan iyo kulantadeena dambe barnaamijkan la mid ah waa qalanjo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.